daawadayaal waa mar kale iyo telefishinka Somsad ee xarunta magaalada Toronto waa mar labaad iyo barnaamij aanu idinka soo diyaarinay magaalada Ottawa Ontario caasimadda dalka Canada barnaamijkaas oo ku saabsan taageero loo sameeyay samayntii maamulka Jubbooyinka ee loo bixiyay Jubbaland barnaamijka oo aad u ballaaran nala daawasho wanaagsan إلهي سبحانه وتعالى كسكو وحنو ما هذين يا دمان رجي دمركي ويسوقيهن مقعين عن تري ما فيعنا ليستي وداري هاي سو أبا بولي خرج كوكو بحشي برنامج كان روح ذا بدن عوض أرك دونتان نسكو دبرت كيسي أيديسا أنت بلها تعامد والجديد ده كلن كانن وحويان تاجيرس لتاجيريو معمول ككرس اسمه جوبلاند وحنفيليا waxaan filayaa Jubbaland gobolada la yiraahdo waa jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo taariikh facweyn ay leedahay history qoto dheer ma aha sharaxaad badan runtii kama bixin karo anigu sababtoo amihi taariikhyahan yani taariikhda ku takhasusay balse waxaan ogahay inay yihiin dad Soomaaliyeed dad nabad jecel dad hawlkar ah oo shaqo badan kaluumaysato beeraley xoolo dhaqato oo ah saddexda wuxuu dhaqaalaha Soomaaliya uu aasaaska u ah waxaan la soconaa taariikhdii ugu dambeysay 22 sanadood soo dhaafay dhibaatooyinkii ugu badnaa regionska ay qabsadeen inay Jubbaland ka mid ahayd waxaad la socotaan xeryaha dhadhaab ifo iyo xagar dheer dadka ku jira boqolkiiba 80 inay yihiin dadkii Jubbaland ka soo barakacay 22 sanadood dadkaas inay ku jireen nolol silca deegaan saxara ah aan geed la harsada lahayn مسقول لهين شلتر لهين قحوتني ما يكون جيران وحنا صعنا dad badan oo aqoonyahan in research ka sameeyaan ama hay'adaha xuquuqda u dooda ay cadeeyeen in hablo badan oo Soomaaliyeed lagu faraxumeeyay xiriyaha qaxootiga dad badan ay ku dhinteen silc iyo saxariir awgiis dadkaas waxay mudan yihiin regionkii ay ka yimaadeen in nabad ugu noqdaan habka kaliya oo ay ugu noqon karaan waxay tahay in islaax iyo nabad laga keeno taasaana keentay dadka isla degan regionka oo Soomaaliyeed 4 sanadood inay ku mashquulsanaayeen inay sameystaan maamul ay ku mideysan yihiin si markaasi ay horumar ugu horseedaan bulshada deegaamada ka soo jeeda waxaan la soconaa taariikhdii 20 sanadood dagaalada ka jiray dhulkaas inay ahayd battle ground marba dhinac loo jiiro maadaama dadka deegaankaasi ay dad nabadeed oo aan qoryo iyo xabad iyo mataqaana yaamba iyo waxay wadan jireen shabaq oo malaayga lagu dabto laakiin qoryo isku xirsanay waa marba dhinac ka mari jiray marka qolyahaasi runtii barakac badan bay dadka u keeneen deegaanka ku nool cadaawad badan oo yaani diifteedii ilaa maanta ay socoto ayay u keeneen dadkii deegaanku marka waxay garteen in si ay u samata baxaan khilaafaadka dhexdooda ah ay dhameeyaan muddo 3 sano ay ku qaadatay in regionka dadka degan gaar ahaan hadda carabka ku dhufto qabiilada ugu tugtugtaroon oo deegaamada degan oo runtii khilaafaad iska mararka qaar kood sadbursi iska ahaan walba oo ninka kala doonay inuu maqooniyo aakhirkii ay dareemeen in xabad iyo dagaal nin uusan Soomaaliyeed kaga reyn karin inay heshiiyaan nabad ku wada noolaadaan way is yaqaaniin taariikh soo jireen ay leeyihiin walba deegaankiisa uu barakaysto Ilaahay siiyay ay wada noolaansho run ay sameeyaan tii markay dhamaateen inay gudihii shirki la yimaadeen oo dadkii kale oo deegaanka la deganaa gogol u dhigeen iyagoo isku waafaqsan oo israba oo ismaxabeynayna maamul saa ku sameysteen haddaba dawladda Soomaaliya oo federaalka ah oo runtii ah dawlad federalism yani aaskeedu yahay federal marka la leeyahay waxay tahay waa regionsku in ay amuurahooda ama shu'uuntooda gaarka ah maamushaan federaalkuna wixii guud oo lagu heshiiyay sida ku cad constitutionka Soomaaliya oo ay kamid tahay midalan arrimaha dibadda gaashaandhiga mataqaana dhaqaalaha dakhliga soo galaya dalka ha ahaato deeqaha dibadda laga helay waxbarasho ama dhaqaale waxyaabahaas inay maamusho laakiin dadka localka ah ayahooda inay ka tashan karaan hoggaanka dadka u qabanay inay doortaan tii Jubbaland markay sameysay ay ka sugayeen inay maxabayso dawladda Soomaaliya oo taageerto waan garan karnaa ficilka dawladda Soomaaliya ee dadka kula dhaqantay oo ah mid aan qaban dadka Jubbaland sida awgeed waxaan leenahay dawladda Soomaaliya inay eegto oo tixgeliso constitutionka Soomaaliya ka waantoodo ficil kasta oo keeni kara kalsooni xumo ficil kasta oo keeni kara dhiig dambood Soomaaliyeed inuu daato waa la socotaan dhowr kibari oo ugu dambeeyay waxa ka dhacay Kismaayo run ahaantii oo xataa
African AMISOM ciidamadii African Unionka meesha ka joogay ee Addis hartay dowladda federaalka ahaa taasina marka waxay ku cadeynaysaa in dadka deegaamadaasi ay diyaar u yihiin dowladdii laakiin ay ka cararayso aysan dadkeedii rabin balse ay cadaawad dhex dhigayso marka waxaan halkan uga dareynaa fariin dowladda federaalka ah inay ogaato jidka ay ku socoto jid qaraska xoor inuu yahay inay ka waantowdo ismaqiiqinta iyo mataqaanaa anaa la erkaday anaa eri ay ogaato haddaysan kalsooni ka haysan shacabka Soomaaliyeed inaysan dowlad ahaan karin waxaan kaloo leenahay dowladda federaalka ah hawlo badan baa laga sugayay markii la magacaabay waxa loo magacaabay inay dalka u diyaar garayso 4 sano kadib inay doorasho cadaalad oo xisaabaha dalka gaarsiiso waxa laga sugayay inay reconciliation dadka Soomaaliyeed kala dhex dhigto waxa laga sugayay dadkii barakacay inay deegaamadooda ku soo celiso waxa laga sugayay hantidii dalka oo qaranka dadka ku jiro xoog ka haysta inay ka saarto waxa laga sugayay hantidii shacabku lahaa oo xoog lagu haysto dadkeeda inay u celiso arrimahaas oo dhan baa looga fadhiyay waxa laga sugayay ilihii dhaqaalaha inay ka kaabto waxa laga sugayay inay adeegii bulshada soo celiso dhinacii caafimaad dhinacii waxbarasho iyo dhinacii horumar dhaqaale intaba balse waxaad moodaa number 1 priority ama focus koodi inuu Jubbaland ka badin waayay taasina waxay keentay inay ka indhasaabto hawlihii kale looga horeeyay su'aasha markay isweydiinayna waxay tahay waxa sababay arrinta iyada anigu haddaan eegay shakhsi baan ahay waan khaldanaan karaa waan saxsanaan karaa ragga maanta hoggaanka u haya dowladda federaalka waa rag NGO ka soo shaqeeyay oo haysan jira madaxaha NGO-du sideedaba waxyaabay ku qaraabtaan ama dadka organizationska bulshada ku jira taasi waxay tahay inay helaan mashaariicdaas waxay ku helaan magaca bulshadii markay u adeegayeen sometimes wax relevant uma arkaan waxay focus ka saaraan qancinta ay qancinayaan ninka dhaqaalaha laga helayo arrinta reconciliationka Soomaaliya waxay doonaysaa dowladdu lacag iska sii jiitata inay ku cunto international community ga cunto waa raggan hoggaanka u hayaan ka hadlaya dowladda federaalka ah marka waxa moodaa Jubbaland waxay soo jartay ama soo koobtay in Soomaaliya hadday tashato reconciliation dibad ka yimaada iyo dhaqaale lagu cuno iyadoon la sameyn in dadku heshiin karo taasi marka waxay threat ku noqotay ajandihii ay dowladda wadatay ay threat ku noqotay jiritaanka Jubbaland iyo waxay sameeyeen marka waxa laga sugay in u hambaliyeyso dadajinta ay Jubbaland soo dadajisay dadku inuu tashan karo ayahooda ka tashan karo waxaan hadalka markuu ku soo gabagabeynayaa lama kala maarmo dowladuna kama maaranto shacabkuna dowlad kama maarmo waxaan leenahay dowladda federaalka ah 3 sano inin dhiman shacabka bulshada Soomaaliyeed ha ka khasaarinina inaad focus saartaan region yar oo dhibaato haysato oo dadkiisii qaxootiga ah deegaankiisa rabaa inay ku soo noqdaan focus ka saara waxa la inii irkaday waxa la inii dirsaday maamulka Jubbaland waxaan uga hambalyeynaa dulqaadka badan oo uu muujiyay tanaasulaadka badan oo u muujiyay dowladda federaalka ah oo wali diyaar u yahay inuu la hadlo arrimahan taagan reconciliation wixii difference lagu xaliyo iyadoo of course centralku ama waxa mataqaana la isugu imanayo uu yahay constitutionka dalka u degan marka labadoodaba tanaasulaad iyo compromise inay sameeyaan ayaan u rajaynaynaa inta kaga baxo intaan kaga baxo waxa halkan taxan odayaal qaar badan oo koofiyado dhuuba culimo isma run ahaantii anigu waxaan ahay dadka promote gareeya rag iyo dumar 50-50 inay meesha fadhiyaan laakiin dumarkii waa yara xishoodeen inay listiga isku soo daraan hal qof baan ka helnay laakiin farsamooyin badan oo kale oo cilmi u gaar ah ayay ka qayb gal doonaan barnaamijka waxaan doonayaa marka inaan u yeero Sheekh Cali Ayaale inuu kelimado Qur'aan ah wacdi ku furo oo kooban kadibna aan barnaamijkii speecheska u gali doono بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله عليم خبير. آيات عن كفر فرتي سورة المائدة وحن كسو قادنا يا قيب كميدة مش فسر آياتها قيب تسعوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والعدوان. مركا إلهي وحفرايا مسلمين تا إنay iska caawiyaan wax allaala wixii maaragtay wanaaga wuxuuna ka reebayaa wax allaala wixii maaragtay xumaana inay isfaraan. marka xumaantu birigu waxa weeye wax allaale wixii wanaaga dadku ay ka shaqeeyaan haday noqon lahayd iskuulo la dhiso ceelal masjid masaakiin la quudiyo hadda haddii meel kale infrastructure waddanka laga shaqeeyo sida maaragtay jidadka airborada waxaas oo dhan waa soo gelayaan. waxaa yara soo geli kara in maaragtay wixii maamul wanaaga ay maaragtay ayadoo soo gasho sababtoo ah waxaan ku soo noqlay in Soomaaliya hadda waxaan soo moognaa 23 sano oo fawdo ah. marka ruuxii ka shaqeeya inuu maamul wanaagsan wuxuu noqonayaa ruux ka shaqeeyay waxyaalaha ayaduna ay farayso ah biri wax wanaagsan uu ka shaqeeyay. marka taas haddaan uga gudbo aayadaha suuratul maa'ida waxaan isugu nimid xafladan anigu markii hore kuma qornayn meesha ayaan buuxinayaa laakiin rijinka laga sheekaynayo ninna waa looga sheekay ninna waa nin kala yaqaana anigu waan ku soo noolaan jiray gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose markii laga bilaabo 75 ilaa 78 degmooyinkooda dhan inta badan waan maray geedo waan aqaanaa Jubbada dhexe maaragtay iyadana qaar baan ka maray marka nin looga sheekaynayo ma ihi. haddii aan waayo xasuusto waxaan xasuustaa 76 mar ay ahayd tuulo liira Canjeel baan tagi jirnay marka qaarkood waa intaan dadka maaragtay nabad guurka iyo maaragtay ayna ku dhicin waddanka marka baalka maroodiga la yiraahdo ayaa meesha imaan jiray. Canjeel marka waxay u jirtaa Kismaayo ilaa 14 kilomitir meelahaas meeshaas aan u tagnaa maroodigii ooman oo ciida ka badan ayaa wuxuu imaanayaa dacdii xooluhu ka cabeen markaasaan maaragtay ka kala eri jirnay annagoo ku cayaarayno. marka hadda markaa xasuusto maaragtay waan ka xumaadaa ficilka aan ka qayb qaadan jiray laakiin haddana waxa weeye xasuustaydii dambe gobolkaas uu ahaan jiray iyo sida hadda maanta laga sheegayo oo dhirtii dhan la wada jaray maroodigina uu galay maaragtay Kenya iyo meelo kale u galay waxa weeye taas ayaa iga sii xanuun badan waxyaalaha hadda ka dhacay. marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadda constitution waddan baa la sameeyay ma akhrin nasiib xumo constitutionka guud ee waddanka laakiin waxaan akhriyay midka Jubbaland waana ila wanaagsan yahay haddii lagu dhaqmo laakiin waxaan uga digayaa ciddii meeshaas qabata ciddii doonta ha noqoto inayna noqon maaragtay sidaas sidii wax la oran jiray muluku tawaif waagi muslimiinta haysteen Andalus oo ah hadda maartay Portugal iyo Spain ay haysteen 800 sano ay haysteen markii dambe waxa ka soo baxay gobolo yar yar xukuma markii dambe ayaa maartay mid baa lagu jebiyaa kana kan lagu soo diraa kan buu naab yahay marka ilaa markii dambe muslimiintii oo dhan maartay laga xaaqay gobolkaas oo hadda ayna muslimiin waxba ayna ka jooginin. marka dowladda Jubbaland gaar ahaan iyo dowladaha stateska kale oo jira waxa weeye waa inaysan noqonin sidii maaragtay muluku tawaif ay noqdaan wax ka baaya nidaamka dawliga ee ayna noqonin maaragtay wax kala dhantaalaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa la yiri kelmad yar jeedi marka kelmadii wixii aan sheegi lahaa oo dhan Farax baa jeediyay oo wuxuu inii siiyay suurad kaamil ah waxa ka jira Jubbaland kaliya waxaan rabaa inaan ku daro oo ina weydiisto dhammaantiin
in aan xusuusanno dadkii ku dhintay dagaalada Jubbaland. waa dad muslimiina, waa dad Jubbalanderisa, dhinac kasta ha ahaadeen dadka islaynaya waxa weeye dad muslimiina oo walaalaheena. marka waxaan idin weydiisanayaa inaan horta xusuusanno oo aan duco u samayno, taasaa anfacaysa. ilaahay qaadir ah inuu dambi dhaafo, inaan ilaahay uga barino. tan labaad waxa weeye Jubbaland 4 sano soo socotay. 4 sano markii hadda dawladda la dhisay, dawladdii way ictiraaf weyday taamkii dheeraa oo ay soo socotay Jubbaland. dawladda way ka horeysay iyadoo dawladda ayay jirtay, inkastoo aan constitutionka iyo la samaynin iyo shirkad madaxweynaha, laakiin maamul jira bay ahayd oo ku bilaabatay markii hore Asaniya, ka bacdina markii dambe isu bedeshay Jubbaland. marka inaga dadkeena halkaan isugu yimid caaway oo xusuusanaya Jubbaland, waxaan rabnaa inaan taageero dhiibno. muhiimada ugu weyn aan isugu nimid waxa weeye inaan taageerno maamulka cusub oo halkaa ka dhashay, oo aan aad u rumaysanahay dhammaanteen in uu yahay miftaaxa Soomaaliya siyaasadeeda sida ay noqon doonto mustaqbalka soo socda. Jubbaland hadday hargasho waan hargelaysaa insha Allah. waxaa ku xigi doona maamuladii kale inay bilowdaan oo Soomaaliya dariiqaas oo hoos laga soo dhisayo, oo maamul goboleedyada marka hore la dhisayo ka bacdina ay noqon doonto central, dawladdii dhexe kor ka imaanayso. haddii dawladda iyo dadkan kale oo isbiirsanaya oo shabaab iyo dadkan kaleeto xamar laga soo diray ay waxyeelayaana, waxa weeye sida hadda dawladdu rabto inay ka dhisto Soomaaliya wax central la yiraahdo, marka ma soconayso. waa u sheegaynaa dawladda Soomaaliya constitutionkeeda ku taala waxay noqon doontaa Soomaaliya dawlad federaal ah. insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo Puntland waa jiraysaa, waxyaalaha yaryarka ah oo dhimanna way dhamaan doontaa. Jubbaland ha noolaato, Jubbaland ha noolaato, Jubbaland ha noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. caawa sidii la idiin sheegayba ama aynu halkan isku wada nimidba waxaynu u ciidaynaa waxa weeyaan Jubbaland. inkastoo aynu xafladan la daahnay oo reer Ottawa weligood way yara gaabiyaan ay la daaheen, waxaad moodaa haddana waxa weeyaan si sharaf leh ayaynu ugu ciidaynaa maamulka cusub ee ka bilaabmay Jubbaland, dawlad goboleedka ah. dawlad goboleedka Jubbaland wuxuu ku beesgaraysan yahay constitutionka qaranka. qaranku wuxuu samaystay constitution ama sharci buu samaystay. sharcigaasoo ah in gobollo la sameeyo, deegaanka dadka u dhashay in ay samaystaan gobollo ay iyagu isku xukumaan, dabeetana ay wada hoos yimaadaan maamulka guud ee centralka. haddii aynu Canada eegno, Canada waxay u qaybsan tahay 13 gobol. haddana waxa weeyaan waxa laga xukumaa oo dalkooda laga xukumaa waxa weeyaan Ottawa oo federal state away. sidaa daraadeed ba constitutionkeena Soomaaliya laga sameeyay ee dadweynuhu doortay loogu ogolaaday inay samaystaan dawlad goboleedyadaas. markii la sameeyay Jubbaland may odhanin waanu go'aynaa oo ma garanaysaa banaankaanu istaagaynaa, xor baanu nahay oo Soomaaliya waanu ka go'aynaa, may odhan. haddii aad dhagaysateen ama daawateen Axmed Madoobe khudbadiisii ugu horeysay, wuxuu si faahfaahin ah oo balbalaaran ugu sheegay cid walba in ay Jubbaland tahay gobollada federaalka ah ee ka mida Soomaaliya oo xor ka ah, laakiin iyagu isxukumaysa, dadka deegaanka iyagu ma garanaysaa ay isxukumayaan. maadaama caynka ay tahay Jubbaland waxaanu leenahay
dadyow fara badan oo diverse ayaa degan maamulkana waxaanu leenahay inay dadkaas oo dhan wada gaadhaan baanu u baahannahay oo loo baahan yahay inay dadku garanaysa ka wada qayb galaan sida faarax markii horeysa sheekada idinku sheegay waxay ahayd dadku markuu wax doorto constitutionka ku beesgaraysan yahay dee federaalkay la hoos tegayaan federaalkuna maamulkiisuu leeyahay dowladduna waxay dowladda goboleedkuna maamulkeeday leedahay sidaa daraaddeed waxaa jira gobollo kale oo iyaguna sidaasi la eg federaalka hoos imaanaya waxaa ka mid ah Puntland oo marnaba ilaa ay jirtay ilaa intii ay jirteen marna aan odhanin waanu go'aynaa laakiin ilaa maalintii ma garanaysaa la sameeyey Puntland ilaa maanta midnimada qaranka u taagnayd oo ilaalinaysay waxaa ka mid ah Khaatume State of Somalia oo taariikhdeeda aad ka warhaysaan in ayan ogolaanin in dalka la kala googooyo waxaa ka mid ah Maakhir State waxaa ka mid ah Awdal State waxaa ka mid ah Ximin iyo Xeeb baa ka mid ah waxaa ka mid ah way badan yihiin gobollada iyagu sidooda isu xukumaya ee federaalka wada hoos imaanaya anu ma garan karo dhibaatada federal governmentku ay ka aragtay Jubaland kuwa kaleba way wada jiraan anu ma garanayo dhibaatada ay ka aragtay mar walba waxaynu nahay inaynu midnimada qaranka ilaalino federal stateku intay Jubaland dabagalayaan waxay ka fiicnaan lahayd inay dabagalaan dadka midnimada diidan qaranka midnimadiisa diidan inay dabagalaan bay fiicnaan lahayd dowladdana waxaanu ku leenahay federaalka waxaanu leenahay midnimada Jubaland ma diidana gobollada kalena ma diidana cidii diidan midnimada hal dabagalo hal soo celiyo Jubaland waxa weeyaan ha jirto gobolladuna ha jireen kale ee garanaysa federaalka hoos imaanaya midnimada Soomaaliyeedna ha jirto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan caawa isugu nimid taageerada Jubaland lama bilaabin caawa caalamka oo dhan baa laga taageeray intay dhahaayeen baan leenahay anagana intii ay caalamku yiraahay ummadda reer Jubaland adduunka ku kala nool waxay sheegeen baan caawa anaguna sheegnaa wax kale hadda sheegi kareemin insha Allah ta'ala Jubaland waxay soo socotay muddo process bay soo gashay shaqo badan iyo dhibaato badan baa la soo maray dagaal badan bay la soo gashay muxuu ahay kooxihii dagaalamahayay markay timid inay markaa saldhigato waxay sameysay maamulka iyadoo ku guda jirto ayay waxay u yeeratay dowladda dhexe bay u yeeratay oo ay tiraahay inoo imow kaale wax nagala maamul doorkaaga ka qaado dowladdu waxay soo dirtay oo yimid ra'iisul wasaaraha maalintuu yimid ra'iisul wasaaraha imaanahaye Jubaland laguma dhawaaqin maamulkeeda isaga la sugahayay dowladda la sugayay markuu yimid waxa lagu soo dhaweeyay caleema waa laga hortigay sida loo jeclaa waxaa meesha fadhiyay 800 oo cuqaashi ah oo muxuu ahay ragii dowladda dhexe soo dhisay sugahayay meesha ku sugahayay waxaa la fadhiyay jaamacadda ra'iisul wasaaraha intuu yimid oo dhex fariistay dadkii wax lama qaybsanin oo muxuu ahay odayaashii uma tagin waa dhaqaaji raadkiisu ku noqday diyaaradii dib u raacay walaalow noo imow idoo leeyahay waa tagi ra'iisul wasaaraha waxa markaas la sugahayay maxaa ku xiga oo haddana inoogu xiga
waxaa la sugayay inuu yimaado markan oday dhaqameed meel haddii muxuu ahaaye bal un haddana ama madaxweynihii ama ra'iisul baarlamaankii bal inay yimaadaan haddana dad kale oo haddana xagga dowladda ka socdo waxaa la soo diray wasiirka gaashaandhigga dowladdu waxay soo dirtay wasiirka gaashaandhigga haddii la soo diray wasiir gaashaandhig shaqadiis waa taqaanaan waxaa loo soo diraa military xukuumaha meel la burburin hayo oo aan nabad laga rabin baa loo diraa wasiir gaashaandhig kolkuu yimid wixii ka dhacay meeshaas naf baa la waayey dhaawac badan baa dhacay dhib baa dhacay waa noqday intaa waxaa ku xigay hadda marka madaxweynaha qaranka waan jecelahay al'aankan waa madaxweynihii dalka waxaan islahayn qabqable ma aha dakana ma gelin ummadda Soomaaliyeed saafiib u yahay marka waxaa dhacday markaa in ilaa iyo saacadan aysan dowladda iman isin inoo iman oo dowladdu ay ka dacweynayso Jubbaland banaanka iyada oo taxtigeeda ah oo ay leedahay dowladdeena ay leedahay Jubbaland aysan diidaneen oo u yeeranayso haddaba waxaan leenahay dowladda waa dowladdeena waan jecelnahay dowladda shacabkeeda waxa la qaybsato reer Jubbaland waxay jecel yihiin dowladda way u yeerteen way baryeen noo imaabayre al'aankan meel ma jirto ma sheeganin goosasho ma goosanayso Soomaali way meel uma socoto gobolada Soomaali way jubbooyinka waxa way dowladdu ha u soo dabacdo shacabkeeda haddaadan kalsooni shacab haysanin dowlad ma noqonaysid العموم isku soo duub hadda marka dadka Soomaaliyeed ama dawladda dhexe ama Jubbaland waxaan kula dardaarmayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ka baqno alle inaan ka cabsano isu dabacno lees cafiyo wax kale wax lagu gaari karo ma jirto isdiida wax lagu ma gaarayo in la isu dhirbi washaawirhum fil amri fa ida azamta in la wada shawr la wada fariisto la wada hadlo dawladda yaysan muxuu ahaa ka baqin shacabkeeda hala fariisato ha u soo dirto dadkii ku habboona inay wax xasiliyaan ha u soo dirto waa la sheegay warkan waa la sheegay madaxweynayaasha adduunka dawladaha adduunka hadii wax laga sheego dawladdu way ka xishoonaysaa in mar dambe wax laga sheego yaan lagu soo celcelinin dawladda ha timaado shacabkeeda ha u dabacdo ha la fariisato khilaaf haday tumayso khilaafka ayada ha baabi'iso wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan mahad u celinayaa gaara dadka caawa halkan isugu yimid guud ahaan iyo gaar ahaanba oo maamuuskan meesha ka muuqda sharafta lagu maamuusayo dhismaha maamulka Jubbaland walaalahay sharafta leh aniga hadalka waxaa la ii siiyey si aanan ku soo talagelin hase ahaatee waxaa weeye wixii la oran lahaa dhammaan waa la wada yiri laakiin waxaan idiin sheegayaa Jubbaland oo la isku yiraahdo saddexda gobol Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado dhulkaas isaga ah waa dhul markii miisaan la sameeyo guud ahaan Soomaalida intii kale iyo saddexdan gobol barwaaqada uu leeyahay iyo sida uu dhisan yahay iyo sida uu habaysan yahay iyo waxa uu leeyahay waxa weeye miisaanka asaga raajixinaya waa dhul Soomaaliya oo dhan ay ku wada noolaan karto anigu dhulka ma marin ma seexan hal habeen ma seexan Kismaayo waa ku dhashay reer Kismaayo ahay Gedo gubernatoran ka ahaan jiray ninkii aasaasay baan ahay gobolka Jubbada Dhexe in gobol laga dhigo aniga sabab u ahaa marka waxa weeye dhulkan waxa weeye dhul aad iyo aad u dahan ballaaran aan la gaari karin ma u maleynaysaan
haddii la isku daro Somaliland dhulka la yiraahdo Puntland iyo gobolladana hadda la sheegay waxaas oo dhan haddii la isku daro waxaa ka qiimo badan magaalada Baardheere haddaad aqoon lahaydeen dhulka Baardheere kaliya Kismaayo badbay maaragtay badda xaggeeda ayay qiimaha ugu leedahay laakiin carrada Baardheere adduunyada waxaa laga helaa hal meel kaliya waxaa laga helaa Angola waxaan adduunka ka bixi karin male Soomaaliya dhanna way mataqaanaa way siin kartaa maaragtay barwaaqada marka dhulkan jubbada dhexe Saakow iyo dhulkan marka hore waxay raacsanayd gado ayay raacsanayd waa igu weynaatay dhul ballaaran buu noqday waa kala gaari waa ceel waaq ilaa muxuu ahaa ilaa luuq ilaa meesha ugu dambaysa ilaa balad xaawo soo jeedin bay ahayd Saakow iyo dhulkan in mataqaanaa gobol kale laga sameeyo gobolka laftiisa laba gobol oo kale in laga sameeyo way lama gaari karo jiiskiisana waa xumaa sidaa daraadeed ayaa barabooskii guddi loo soo diray ra'yigii baan la weydiiyay gubernatorihii Jubbada Hoose iyo gubernatorihii maaragtay gada joogay waxaa la yiri barabooskiina keena in gobol kale la sameeyo gubernatorihii markaa joogay Jilib Kismaayo raacsanayd waa laga soo gooyay waxaa la soo raacshay Bu'aale anigana waxaa laga gooyay Saakow baa laga gooyay oo sidaas markaa gobol dhexe loo sameeyay Saakow waxaan leeyahay Jubbada dhexe ayada lafteeda ayaa ka qiimo badan Kismaayo aad sheegaysaa Kismaayo badda qiimo ku leedahay Kismaayo dhinacan badda iyo dhulkan maaragtay hawdka xoogaa maaragtay ayay laakiin beeraha xaggooda markii la yiraahdo مثلا gada ka soo qaad 6 degmo waa 6 degmoba hal ma inta kale webi baa mara bal fiirday dadkii lahaana waa ka gaajisan yihiin waana 20kii sano Kismaayo Jubbada dhexe iyo meesha la yiraahdo muxuu ahaa gado dib dhaca ku dhacay taariikhda adduunka lama arag iskool male tacliin male waxba malaha mataqaanaa caafimaad malaha يعني وحبل لقى كلية وحكسه بحجري شباب لليرة الشباب كان إنشاس لو تربيين جري دكسيو تقال هذا لو درجة ساس كل ما هذا كسمايو متقانا بقالة يوم حاجة كذا مركولا لي الوحوية هدي ما أنت اسمه مولين وخير الله سيو رك أنت كعين أي هذين معمول بان سمينينا رجع تاريخ بالذهب ككلام وادقالبين واسقيين ووحيين وما يساحن إلا ديكودو كداتي أبال بكلين أمد الصومالية دن وحاوية أمد سوء مانيس أو نقونيس متقانا هرمر سبينيسا أو إنتاس لواتسنا كوي لواتسنا لبيا لواتسنا بابا سنايد أو ما أنت السيمد وحايد إن لوهم بليه وحايد إن يرادو وناك باسميسان قبيلها قبصده أما نكي ربها قبصده ومدي وحوقبته أبال بمريين مركا إن حاسدمو لا فيريا وريرهبل هالنقطة الدرب وهاو حقبته ومدة وحوقبته لا مرة وحاوية مرة ده أرتي قبل الله ومدي له حباس سميسنينا هذا عدو وإيمانها يا ولا لا تكلمها يا ولا لا حربنا يا دجال كان يمتكبدن بإيمانها يا ومحوها والسهردينها يا وهذا كون اللوجا إيمانها يا مركا وإن صبر iyo mataqaana adkaysi iyo inaan la baqin mataqaana wax la qabto maxaa laga rabaa ummadda 20 sano baaba'sanay 20 sano dulli ku jireen waa rafaadsanay badambe galeen haddii dheem waxbaan sameysanaynaa waa la dilay waa la rafaadiyay waa la dhacay waa la sii maray waa la soo maray maxaan dhina guriyahayga aawe dadkayga aawe ummadayda aawe shalay baa xaggana xasan president xasan gacan baanu ka sugeynay intaasoo sanaan baaba'saneen waxay ahayd maanta waxaan ka sugeynay inuu gacanna siiyo inuu yidhaha wax qabsada wax samaysta waa idintaa kulaynahayaa bravo
وفي عنتين ونهار أرضه وحي قلب أن لين هانا ونقصحه ساسه المانت إنه نصحيه هدو قلب شرو بني آدم بالله ولا قدم كرا حنا الصحو هنوي ماذا وحدين يراد هيه هل كان قلب باكجرة وهل كان ضلول باكجرة وهل كان متقانا مفعنا وياي ولا صحيح لكن نا واي عندنا حنغرتا مدن مدحوين واخد والو دورتي ومد الصوماليد مدحو تاي وادباتay sana iska kaayda بليز intaas maxaan annagu ku dhanay maanta uma 20 sano 22 sano ummadda Soomaali waa baabaaday kuwa ugu liidanaa nahay maanta walaal hadalku waa idinku baday iga raalahaada maaragtay intaasaan idin sheegayaa hal Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya guud ahaan ha noolaato walaalayaal dhibaato badan baa hawlo meeshaan lama rabo inay socoto lama rabo mataqaanaa dhaqaaq inay samayso goboladaas hadday hirgalaan hadda waa Soomaaliya oo dhan waay hadday hirgalaan Soomaaliya oo dhan baa hirgashay waa dalkan waa ka ahaya waa dhibaatadii gaartay ka soo kabanayaan dhulkaana nin kasta waa deegaan lama kala laha Soomaaliya oo dhan baa deegaan karta waana na deeqdaa that's the reality waana deeqdaa waa dahab dhulka ninka xiga ma jiro ninkii wax qabsanahay welcome how haysno laakiin waxa weeye dadka hawshaas galay ee ka shaqeeyay baal dahab baan ku qoraynaa wixii naga hor yimaadana ayagana sidoo kale baal dahab baan ku qoraynaa walaalayaal daaya oo qosqosayska naga daaya oo dhibka naga daaya oo hardida naga daaya dhibaato ma wadno waa xaasadnimo waxaan xaasadnimada naga daaya waad garanaysaa Puntland markii la aasaasayo wixii dadka dhacay waa u jeedeen dagaal maxay tahay xal loo sameynaa maxay tahay Puntland maxay tahay buuraha dhagaxa kan waay xagga waay ويا وحالي هذا الكواب السجود السلام عليكم waxa tusaalo ama talo aan madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe iyo Cabdullaahi Ismaaciil Farataag waxaan u soo jeedinayaa talo nasteexo iyo walaalnimo horta marka ugu horeysa cabsida Ilaahay baan ayaan kula dardaarmayaa cabsida Ilaahay baa wax walba soo hosgalayaan haday cabsida Ilaahay taqwada Ilaahay ay hoos gasho wax walba soo hosgalaya horumar baa imanaya cadaalad baa imanaysa nabad baa imanaysa wax walba imanaya marka waxa weeyaan iyaguna waxa weeyaan waxa jirtay waqtigii Umar bin Khattab baa waxa weeyaan nin Yahuudi ah baa lagu dulmay magaalada la yiraahdo Qaahira Masar waxaan malayaa waxa waali ka ahaa marka Umar bin Aas ninkii baa la dulmiyay ninkii markaa waxa la yiri nin caadila nin waxa jira amiir oo ninkan ka sareeyo oo jooga magaalada Madiina la yiraahdo ninkii Yahuudiga uu soo lugayay Madiina yimid Madiina markuu yimid ninkan wuxuu ogaa ciidan baa ilaaliya agtiisa lama maro wuxuu sir ninkan tolo si aad u arki kartaa wuxuu ninkaasaan doonayaa Madiina waxaan ka mid Qaahira dacwaanay waxa la yiri ninkii waa ka geedka hurda baa la yiri ninka doonaysa waa amiirul muuminiin وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نينكي يهوديغا markuu arkay ninkan geedka iska hortaan ciidana ilaalinayn iyo ninku ka yimid wixii waardiya ilaalinayay kalmad buu yiri wuxuu yiri حكمت وعدلت ونمت رواية كلام waxay leeyihiin waxoodii baad u daysay iyagoo ku daayay waxa weeye waad xukuntay waad seexatay waad xukuntay cadaaladna waad fartay Ahmed Madoobe iyo Cabdullaahi Farataag waxaan leeyahay nabadgelyo hadda rabtaan iyo maamul fiican idin hirgalo cadaalad dadka ku dhaqma cadaalad hadda ku dhaqantaan wax walba way idin hagaagayaan dawladda hadhay inta hadhay maamulkii wali baarlamaankii lama dooran dawlad wasaaradii lama dirin waxa weeyaan dadka qabaa'ilka magaalada dadka wada degan waa inay meesha ay ka wada muuqdaan waa inaan magana cidna lagu tuman sidii cadaalad tahay nin walba in xaqiisa helaa
dowladda federaalkaana waxaan kula talin lahaa ama odhan lahaa nin baa wuxuu yidhi weyl baa waxay ku sadkanayd 2 sac weyshu markaa waxa weeye saksanaanta malaa dadka badigiisu ma garanayaan waxa weeyaan waxa dhimatay saciiba waxa dhintay weyshi baa dhimatay markaa weyshi 2 sacoo siday u irmaanaadaan laba hooyo yeelatay weyshi baa maalintii dambe carartay duurka gashay ninkii baa ka daba cararay ninkii weyshi buu la hadlay wuxuu yidhi weylay hay caana tirin 2 sacna ha gurin adiguna duurkaygu bahal kugu cunin marka waxaan leeyahay madaxweyne xasan ha iscaana tirin hadda labada jubbalandna ha ka gurin saca wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jubbaland ha noolaato jaamaca waa saraakiishii hore sida awgeed khudbadiisa ka fahmi kartaa raggii inuu ahaa mataqaanaa madaxda ahaa marka jaamaca mahadsan tahay waxaan doonayaa inaan u yeero walaashay muxiib cabdi waxaan inta isku nimid caawa aniga kulley wax badan idin ma sheegay weligay ma soo hor istaagin banaadam iyo mikrofon iyo dad toona waxaan u dabaaldegaynaa caawa Jubbaland oon taageeraynaa gabdhaha marwooyinka degan in Orowa aad bay u mahadsan sida sharafta leh qiimaha leh ay uga qayb qaateen ama ay noogala soo qayb galeen waan idinkugu mahad celinayaa aad baad u mahadsantihiin nimanka laftooda hormuud bay noo ahaayeen iyagaa bilaabay mahad gaar bay ayay leeyihiin de Soomaalina ha israacdo ilaahay waxayna inay israacdo oo allaha boqorkee ma arkino muwaafaqo badanna dhex dhigo gaar ahaan Jubbaland qulqulada yar ka taagan ilaahay ha nooga dhigo mid ma arkino heshiis oo si wanaagsan isu fahmaano ay heshiyaan ayaan allaha boqorkee ka baryayaa idinkana waa mahadsantihiin waxa jira madaxda loo doortay Jubbaland in aan la xiriirnay isku daynay in mas'uuliyiinta ugu sareeya Axmed Madoobe Fartaag Gandhi Darwiish waa gruubo badan oo dadka meesha aas-aaskii waxa tira Cali Madoobe way badan yihiin waxun inaa helno markaan la hadalna shirar bay ku jireen Addis Ababa ay joogeen oo wada hadal dawladda federaalka iyo dawladda Jubbaland uga socday anagoo rajaynayna wax la taaban karo guula inay ka soo baxanaysa afkarad marka qof bay noo soo xil saareen magacooda ku hadlaya qofkii marka line-ka telefoonkan ku soo xiri doonaa markuu soo galo si mubasharan yani baad u dhageysan doontaan hadda xasiilada ugu dambeysay yani waxa kale koobka ugu dambeeyay dadkii labada dhinac la ku dambeeyay lama soo ururin oo waxba wali dhiman sababtoo xaafadaha lagu dagaalamay baa u baahan in hal looga soo qaado dadkii meesha ku dagaalamayay waxaad ogaanaysaan wadanku intaas qaskaas lasoo naqliyey lasoo tuuray wax ka badan oo dad ah kama jiro dadkan dagaalkii dheeraaday shabaab lala daray kadib waxaa loogu yeelay nidaam nabad ah oo waxaa la dhihi karaa waa dariiqii ugu dheeraa ee loo maray in dadka gobolkaasi ay heshiiyaan sababtoo ah markii la qabtay magaalada ciidamadii qabtay garabsanayay ma ayna magaalada kaadiga ma shacabnay annaga baa maamulayna dadkii wadanka deganaaday waxay u bandhigeen in ay qaataan nidaamkoodii ayagu isdoortaan si saxayna u doorteen maamulka mar hadday doorteen oo ay dowladdu raalli ka noqon weyday inay qastay bilowday oo ay dib ku samayso waxaana ka dhashay inay diiga cusub ku daadiyaan Soomaaliya oo diiga cusub horseedaan mar hadday arrintu sidaa noqotay waxaa weeye mas-uuliyadda waxaa qaadanaya cidda ay hawshaa ka shaqaysay ee maalgelisay ee dadka isku dirtay cidda ay mas-uuliyadda qaadanaysa
marka salaan baan idinka wada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaad ogaanaysaan dalka idinku idin baahan yahay waxaan rabnaa inaad timaadaan oo aad dadkii aqoon iyo cilmi iyo maalgashiba ku biirisaan dhismaha dowladuna waxaan rajeynaynaa maalmahan soo socda in la dhammaystiro sidaas weli hadda akhbaarta saxda ah meesha ka jirta cabsida kaba qabna hadda meesha in qas dambe looga sameeyo sababta intii horeba waxaan dulqaad badan u sameynaynay dadku inay ka qaybgal wanaagsan sameeyaan oo kasoo qaybgalaan maamulka halkaa laga sameeyey oo ayna noqonin maamul hal qabiil u samaystay oo hal qabiil u xoogan yahay oo boqortooyaan inay halkaa ka samaysay arrintaana waa lagu guulaystay dadka warlordskeeda doonaya inay ayagu xoog ku sameeyaan siyaasadna haddee dadka shacabka maamulka ay samaysteen waajib baa ka saaran inuu ka difaaco oo ka celiyo arrintaas sidaas ay ugu talagelaysaan waxaa jira oo aan shirki ku jirin inaan marayno maalintii ay soomaaliya xorriyadda qaadatay ayadana madaxweynaha ka hadlay halkaas waa xusud bay mudan tahay maxkal walba inaynu xusno maalintaas qiimaha badan ee maanta ku jiro ee kooda leeyo annagoo sidaas oo dowladda soomaaliya ixtiraamayna xorriyaddeedii iyo wadajirkeediina la soconno constitutionka soomaaliya waxaa la isugu keenay dadka soomaaliyeed markii ay dagaal inay dhexmaray tireen in dadkaan lagu heshiisiiyo si federalisma federaalkii dowladdu diidan tahay oo waxay leedahay anaga dadkeynima dadka soomaaliyeed inay kala tagaan soomaaliyana markii horaan bay kala tagsanaydo in la heshiisiiyaa federaalka loo qaatay walaba mesoo isburinaysa waxaa kaloo qaacida ah oo ay dowladda soomaaliya inta badan isticmaashaa waxa la yidhaahdo soomaali waa iskale ayagaa la isbaayo oo ah soomaali baayo marka soomaalida ayagoo masiirtay in la dhexdhexaadiyaayo waa dan baa khasabtay oo african union dhexgalaan oo ay diked dhexgalaan oo ay international community dhexgalaan marka khilaafka soomaalida u dhexeeya haddii keligeed heshiin karaan 20 sano dowladmaanna ayna ahaadeen arrintaasaad ogaanaysaan waxyaabaha aasaasiyaadkeeda lunsanna waa ka mid marka aad baan idin salaamaynaa aniguna hadda waxaan doonayaa safarna waan ahaa waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd inaan idin gaarsiiyo salaanta madaxweynaha salaadii subaxna inaan ku kadaan doonayaa marka haddii su-aalo la weydiinayo gaagaaban waa sidaa haddii kale intaas aan kusoo koobayaa waad mahadsantihiin waxaan ka shaqeeyaa qoraalka buugaagta arrin la iloobay oo dhan waa ula soo noqonayaa marka hore hambalyo iyo bogaadin maamulka Jubbaland waxaan leenahay hawaaro ha noolaado waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah taala in ay noqdaan inuu noqdo maamulkii horseeda nabadgelyo iyo cadaalad labada inuu noqdo maartay sidoo kale waxaan ka codsanaynaa oo ka qudraynaa inay si dhaqso ah u dhameystiraan dhisidda hay'adda sharci dejinta ee baarlamaanka ah iyo dawladda golaha wasaaradda ah oo daahay runtii intaana si degdeg ayaan ugu baadinaynaa waxaan nasiib iyo hoodo u yeeshay inaan anigu hadda gobolkaas weyn ee la asaasayo yani mid ka mid ah jubbada hoose inaan ka noqday arday 1975 dugsiga sare ee la oran jiray Ganaane ayaan waxaan ka dhigtay form 1 iyo form 2 anoo Muqdisho ka imid maarad in aan isku fasalayno Cabdiqaadir Teetan leeyahay halkaas oo fadhiya madaxa isna cirib kale sidoo kale xaqiiqatan dhaqanka habda yani ka jira dalkii ee ah la isriixayo ma garanaysaa ana meeshan iska leh kama jirin haddii aan dib u milicsado bal wuxuu ahaa dhaqan la wada leeyahay oo ma garanaysaa qofku markiiba bedelmo oo la qabsado waxaa laga sheekeyn jiray waagii aan joognay laba waxyaabood kubadda iyo quruxda gabdhaha labadaas kaliya ee sheekada kismaayo yani caan waxay ku ahayd hooyadii kubadda cagta Soomaaliyeed 8 jeer bay koobkii gobolada qaaday iyada ugu horeysay banaadirna 4 jeer naadiyada kooxaha koowaad ee qaranka buugan magaciisa waxaa la yiraahdaa taariikhda kubadda cagta Soomaaliyeed haddaan wax yar dib ugu noqdo waa hal gobol kaliya hadda yani meesha saddexda gobol yani laga rajaynayo
لاعبينتي كسب بحي سيري هذا يعني كبير تكسماي كسب بحي وحا كميد هذا حكا حسو ناديga muqdisho waxa uu ciyaari jiray magacyada xataa garan kartaan Ben Shaakir Simba Baasweedi Salman Galar dad kala duwan weeye oo magaca iyo ethnicity-gooda aan shaqayn isku lahayn naadiga horseed waxa uu ciyaari jiray Ibrahim Shaash Xasan Cafiifi Cabdinaasir Jaahuur Umar Gedo Maxamed Aweys badda waxa uu ciyaari jiray Ali Ubayd Salaad Shiino Umar Cadami دين النور عبد الله سواليو نور وبري أحمد جادي أبشر حرد مخ خليف ريكو عبد العزيز قلته نادي جايدك وحكي عيار جري ذكر حاجي عبودي عبد الله سالمو صادق سراد نادي وحول وحكي عيار جري علي يري نادي الجنية علي دربة وهو يدي كبدة عقد الصومالية ضد كلا دوان وعربي عجبة هي العائلين هذه أي هذا كسي ويناتنا أو يعني لبق قبل أو كلا يكسر بيرانا سيدا يسكت درن بانرجيني ده وحالنا لما أنت يعني وحقا جيس قلنا شيء سور لواذا قبل وايد وذا دقة بري قلبيد كل واد دقة الصومالي كل قاعد مفرم بالذي كسر دوينيا مركز شلافة مشيرسه أنت وحنا بحياة هم بلدي بقاعدين تقبل كمارتي جبلنا نورادو waxaan yani ku darsanayaa fursadan yani fariin waxaan joogay xafladda tii ka horeeyay ee Toronto halkan yani dad ma joogay 3,000 oo qof baa joogay maartay habeen dhaweyd oo aan la yaabay moogta laakiin waxa waxtar noqon kara wixii yani aynu geyno 3,000 habeenkaas xafladii lagu casheeyay ka tagtay waara meeshid warha ka haro waxaan soo jeedinayaa anoo waxaan ka shaqeeyaa qoraalka iyo bugaagta in aynu waxtar u sameeyno public library maktabad caama aynu u dhisno oo fundraising-keedu caawa ee ugu horeeyay aynu Jubbaland yani taageero uga dhigay magaalada Kismaayo maktabadii 500 buug ee ugu horeysay anaa donate gareynayo maartay waxaan ka codsanayaa idinkoona inaad maartay waxtar aad yani u noqotaan waxaan ku gabagabeynayaa Soomaaliya dhibaato badan baa ka dhacday dhiig badan baa daatay hanti badan baa la kala haystaa reconciliation run ah Soomaaliya muu dhicin mar kasta oo dhowr iyo 20kii ama dhowr iyo 10kii mataqaanaa shirarkii dib u heshiisiinta lagu sheegi jiray mar kasta waxa laga hadli jiray dawlad aan samaysano laakiin marna lagama hadlin wixii dhacay in laga xaaltamo in meel iska dhigo wadamadii dagaal ka dhacay sida la socotaan South Africa markii cadaanku cunsuriyadu ku hayay madowga waxa loo saaray commission u gaar ah sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd dadkii cadaanka ay dadkii madowga ahaa Rwanda Burundi saasoo kala ka dhacday dadka Soomaaliyeed wuxuu lahaa xeer ay ku xalistaan intay geed hoos fariistaan arrimahooda laakiin waxa moodaa in baryahan dambe Soomaalida inay wada hadashaba laga hortaagan yahay waxa jirtay qiso yar oo in la sheer gareynayo iska sheeka waxa jiray sheeko dhex martay mas iyo nin uu wiilkiisii dilay mas baa wuxuu qaniinay wiil aabahaasna wiilka kaliyo ka lahaa awlaad kadib wuxuu ku talagalay maski inuu ka arguto maskii buu soo raadsaday maskii godkiisii buu identify garay meesha uu yahay maskii buu sugay inuu soo baxo maskii markuu soo baxay gudin buu haystay gudintii buu sir ku dhufo maskii godkii buu ku noqday gudintiina waxay gashay geedka marka maskii wuxuu ku yiri masiyow niyo khalad baan kugu sameeyay waxaan rabaa inaan kula hadlo oo ka xaaltano dhibka ii geysatay soo bax maskii wuxuu ku yiri niyo marrum sabeen wuxuu yiri adna intaad xusuusatid wiilkaagii aniguna aan xusuusto gudinta geedka ku taagan yani waad idil lahayd weeyo ilaah baa ka badbaadiyay anna wiilkaagii baan qabaa heshiin meena kala daabo yiri Soomaaliya marka waxa ka dhacay dhibaato badan waxa jira kala baq badan oo dadkii Soomaaliyeed runtii kala dhex yaala mistrust badan is-aamin darradaasna waxa keenaysa haddii laga hadli lahaa nabarka yani meesha uu ku yaalo boogta la dhayi lahaa oo la daweyn lahaa dawaa loo heli lahaa laakiin waxaad moodaa nabarkii oo meesha ku yaalo dusha in la doonayo in laga daweeyo anytime marka nabarkii dib u soo noqon karaa marka waxaan leenahay reconciliation Soomaaliya inay samayso Jubbaland diyaar bay u tahay dawladda federaalka inay diyaar u noqoto Soomaalidu meel ay joogto inay iscafiso barnaamijka maanta sameynana ma ahayn barnaamij aan u sameynay dad in loola dan leeyahay waxay ahayd taageero Jubbaland inay haysato dad gudo iyo dibadba jooga oo maamulka taageersan waad maasantiin
iyo labada Jubbaland saddexdeena gobole iyo labada Juba garwaaqsade geedigoodo go'aan bay meel dhigteen garwaaqsade geedigoodo go'aan bay meel dhigteen gudguudee galab horay hilacba u galacayiri gudguudee galab horay hilacba galacayiri Jubbaland Jubbaland waa wada xareed Jubbaland kabax iyagu waa goob nimcooyeya gamaani iyo geelu dhalayeya badda ku gadaamaniyo wadiga waa lagu gartaaye Jubbada Soomaaliyeed iyagu waa goob nimcooyeya gamaani iyo geelu dhalayeya badda ku gadaamaniyo beeraha waa lagu gartaaye Jubbada Soomaaliyeed wadiga waa lagu gartaaye Jubbada Soomaaliyeed Nasr Abdul in the house haddii guud calan la saaray galadii way inoo gashee gibliyo haddii guud calan la saaray galadii way inoo gashee gibliyo dhantada gilgilo hagaardiyo geesiguna galadi way inoo gashee hagaardiyo geesiguna gurboodkiyo gibinadeena garlaydiyo gurtideena gurboodkiyo gibinadeena garlaydiyo gurtideena salanguud ku gadaama laabto wow Jubbaland iyagu waa goob nimcooyeya gamaani iyo geelu dhalayeya badda ku gadaamaniyo beeraha waa lagu gartaaye Jubbada Soomaaliyeed iyagu waa goob nimcooyeya gamaani iyo geelu dhalayeya badda ku gadaamaniyo waagiga waa lagu gartaaye Jubbada Soomaaliyeed beeraha waa lagu gartaaye Jubbada Soomaaliyeed hoya sharafkugu hagoogane ciida
وهدن أكوها كبش وهللنينو وروي كو إيمانو أنكو هيرانيسي علنكاك واهبو شرفكو هاغوغاني عيداد وهدن أكوها كبش وهللنينو وروي كو إيمانو أنكو هيرانيسي هبت وحاد كل ذهي وكاد هويو هبت وحاد كل ذهي وكاد هويو وانا لما هراني أقلي وحقوق أبو وانا لما هراني أقلي وحقوق أبو هبت وحاد كل ذهي وكاد هويو هبت وحاد كل ذهي وكاد هويو وانا لما هراني أقلي وحقوق أبو وانا لما هراني أقلي وحقوق أبو أنتي معان وامدا oy laga orane helayo anti معان وامدا oy laga orane helayo anti معان وامدا oy laga orane helayo anti معان وامدا oy laga orane helayo Jubbaland maledu kenio inaga haline Somalia hoy oh dalaweyan degan kisa hodanka lo wada hamune anfi iya kuleilio baraf maledu kenio inaga haline Somalia hoy oh dalaweyan degan kisa hodanka lo hamu هبت وحاد كل ذهي دكاد هويو هبت وحاد كل ذهي دكاد هويو وانا لما قراني أقلي وحقوق أبو وانا لما قراني أقلي وحقوق أبو هبت وحاد كل ذهي دكاد هويو هبت وحاد كل ذهي دكاد هويو وانا لما قراني أقلي وحقوق أبو وانا لما قراني أقلي وحقوق أبو أنتي معا وامدا ويلقى وراني هلايو أنتي معا وامدا ويلقى وراني هلايو أنتي معا وامدا ويلقى وراني هلايو أنتي معا وامدا ويلقى وراني هلايو
waxaan gelinaa hees oo Jubbaland dhaanta ah dhalatay Jubbaland dhaxaa sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya inta ku maqaydo qurbaha ku dhigtote qurbaha ku dhigtote inta ku maqaydo qurbaha ku dhigtote qurbaha ku dhigtote idinka dhowrayaaye dhaqankiyo intahena idinka dhowrayaaye dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya dhalatay Jubbaland dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland wadankaygo dhulkani burburay baa inoo dhawaaqaye dhalintii wadankaygo dhulkani burburay baa inoo dhawaaqaye dhulkiyo xoogeena inaad ku dhistaayo waa inaad ku dhistaane dhalintiyo xoogeena dhulkani burburay baa inoo dhawaaqaye dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa la dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya sharafta dhowri mayso horay u dhigi mayso sharafta dhowri mayso dhaqankiyo intahena horay u dhigi mayso dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya dhalintii wadankaygo dhulkani burburay baa inoo dhawaaqaye dhalintii wadankaygo dhulkani burburay baa inoo dhawaaqaye dhulkiyo xoogeena waa inaan ku dhisnaayo waa inaan ku dhisnaaye dhulkiyo xoogeena waa inaan ku dhisnaayo inaan ku dhisnaaye dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya dhalatay Jubbaland dhaxaan sugayne dhalatay Jubbaland dhawaaqa lahaya
ayaantu maqaanuye marashiyo masruuf kama rabeha helayayo helayayo marashiyo masruuf kama rabeha helayayo gacanta kugu dhigin dooni uma furfuraye arrimahan iswada galay barkimahan la wada xiray anoo gacanta kugu dhigin dooni uma furfuraye magaa jacaylkuyo gibladigu cayaare gibladigu cayaare gofartankii xalay kolkan gogasha kugu tabay kaa eegay gooya kaa waayay garankayga ilmagabo maahiga tiri gofartankii xalay kolkan gogasha kugu tabay kaa eegay gooya kaa waayay garankayga ilmagabo maahiga hoya
jacaylka ma kuro kugu kuma tiriyo kaban kuguma dayo abaal kuma galaye jacaylka ma kuro kugu kuma tiriyo kaban kuguma dayo abaal kuma galaye إنها كجلية قعشدا شريعدا إنها كجلية قفرتنكي حلي كان جوجشا كوجو تبي كأجي كويا كوايا كربتي المجابوما إيجاتري كفرتنكي حلي وكان جوجشا كوجو تبي كأجي كويا كوايا كربتي المجابوما إيجاتري أيوة ويلشة ولا بدي قبلها وحقبتين قبلها عيارته وفرنتها صعبة بلانكي إلهي شرفكم وحبوني بلاني هدان هيل هوا بوري بلانكي إلهي شرفكم وحبوني بلاني هدان هيل هوا بوري صوبادي حبلها كار يكون مسيح صوبت كده دنيا ده حاجة ما ديجين صوب اللي معايو مش عارفي مالي زهريناكو كلنا ديركيكو ما هاي بلس واحد اوغاتا inaan baydiyo hodaan iyo meel barwaaqa kugu baaqisle yahay balse waxaad ogaataa inaan baydiyo hodaan iyo meel barwaaqa kugu baaqisle hoya baranay niyad lagu beera soboka igu tiri badbaadadii naftayday farxadaan isbaranay niyad lagu beera soboka igu tiri soberni maayo warsha caafimaade bandi inaan ku kulanaa beerkayga kuma hay soo beerni maayo warsha caafimaade zahraynaan ku kulanaa beerkayga kuma hay balse waxaad ogaataa inaan baydi iyo hodaan iyo meel barwaaqa kugu baaqisle yahay heedha waxaad ogaataa ina baydi iyo hodaan iyo meel barwaaqa
kugu baaqisleeya shak 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 muuqeeda waan arkayaa oo hadalka waan maqlayaa muuqeeda waan arkayaa oo hadalka waan maqlayaa ma dheeraaye muuqeedishaan ka meerayaa ma dheeraaye muuqeedishaan ka meeraya marbaan ilaa maya afuna kamagaya marbaadila mawsheegana maya afuna kamagaya mahadada kalgacalka dadayda inay ogaate mahadada kalgacalka dadayda inay ogaate mamuujiye jacaylka waan masalaya naftayda waan mamuujiye waan matalaya naftayda waan ما ويليا هيا كما حيان كما صصع هيا come on Django come on cowboy muruga ciil dhibban qabaa magaxuma daniyo maan ismodaya magaxuma daniyo maan ismodaya haddana waan ka magaya anigu waan nadiirtaabaya haddana waan ka magaya anigu waan nadiirtaabaya mahadhada kalgacalka naftayda inay ogaate mahadhada kalgacalka naftayda inay ogaate mamuujiye jacaylka waan masalaya naftayda waan ma weeliya mamuujiye waan matalaya
مدان شرفه مال خير لبطه ومالنتي ملتري حوق مامل وعن لا هلايا كمين نقون دوني دي كمين نقون دوني دي ومالنتي مدو أن سوغيني ومقصودنا يفرح مكستفادوني ذا علنكين كمقودي مكستفادوني ذا علنكين كموري ومالنتي مدو أن سوغيني ومقصودنا يفرح مكستفادوني ذا علنكين كمقودي مكستفادوني ذا علنكين كموري شرفه مالين غير لبطاي نجا مدان شرفه مالين غير لبطاي Soomaali ha noolaato waayahay daawadayaal barnaamijka aad daawateen waxa uu ahaa xaflad loo sameeyay maamulka Jubbaland halkaas oo lagu qabtay magaalada Ottawa inta aynu barnaamij noocan oo kala mar labaad ku kulmano waa aniga Cabdirashiid Maxamed ah oo idinka soo taganaya studio-ga Somsad ee magaalada Toronto kolkan gogasha kugu tabay ka eegay gooya ka waayay garankayga ilma gabo maahiga tiri gofartankii xalay kolkan gogasha kugu tabay ka eegay